gacanta iga gaadheen gacanta iga gaadheen afka iga gaadheen biyihii aan ka baday wanaha iga gaadheen waan qanjibararay oo bistii baan noqday biyihii waan ku xanuunsaday ilaahaygiis waxaan qaadirhaa unbaan tayda ka dhigan waxa nolola layguma in ilka abahay lagu daray laygu daraa la damay محمد عسكر أحمد ومد كمدا لبنياشا به كواي سلطة شركة شيروه كودا لسياقة تقديمات قارهانا عياركا قبلها قرصوني أو كشيكين ياسدوا به وقصنوا بس سلطة شركة دادسي يحريرك كبحية قيريقا به يانا كيسي سلطة waxaa la yidhahaa maxamed askar axmed baa la yidhahaa waxaan ku dhashay shalaabo khaasatan guriga qarsooni la dhahana waan qabanhayga weye waxaa iga soo gaadhay aabbahay suntaa kamberigu shiinaha meeshu ku daadiyey yuu arkay wuu taabtay sankii wuu la raacay wuu ursaday kowuu noqday aabbahay gurigiisaasaan gaadhay wuu xanuunsaday markiiba suntii baa qabatay kowuu noqday uu ka warramayaa dhibaato nafsad ahaantiisa ka soo gaadhay hogoldaaday iyo xurfad biyaheed uu aaminsan yahay in lagu daray sun muddo toddobaad ayuu sheegay inuu xaalad khatar ah galay jirkii uu murxay afkii googa'ay midabkiisiina midab guuray neefaf uu ka waraabiyeyna qaybtood halkii ay ku naafbaxeen anuguna ayaanti ka dambaysay meesha u sumban anuu geel goysiinhaya laamiga yaa daruuro igu heshay daruurta geeli baa biyi cabbay iyo aniguba geelii markiiba lama soo toosinba anuguna toddobaad baan sakaraad ahaa oo aad baan u xanuunsaday waxyaalahaas naga soo gaadhay waxaan rabnaa marka kamberiga shiino inuu anugu waan googa'ay jirkii waan googa'ay afkii waan murxay waan googa'ay dhibaato badan baa iga soo gaadhay waxaan rabnaa gacanta iga gaadheen gacanta iga gaadheen afka iga gaadheen biyihii aan ka baday wanaha iga gaadheen waan qanjibararay oo bistii baan noqday biyihii waan ku xanuunsaday ilaahaygiis waxaan qaadirhaa unbaan tayda ka dhigan waxa nolola layguma in ilka abahay lagu daray laygu daraa la damay ilaahay baan hadda ugu talagelin waxaan ka codsan lahaa dowladda iyo cid walba oo kale in intaasi ay nagu filan tahay oo aanan qaadi karin dhibaato sii waarta oo ka dhalata shirkadaha shidaal saaridda ee degan aagga jixdimeed ee fadlan shirkadaha howlaheeda intaas haynooga joojiso inta ay u soo laabaysanayso shuruucda caalamiga ah iyo deegaanka Soomaalida ayuu hadalkiisii ku soo xiray Ibane Maxamed Cabdi Askar waxaan codsanaynaa marka kamberigu dhibaato kale hanaga joogo intaan baan codsanayaa hanaga joogo haddaan mar aan xaqanaga ka helin hana dhaafo hanaga joogo hana daayo barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah Muxudiin Cabdi Qolif barnaamijka soo saaray duubayna isku habeeyay mahadiyaha ka gaadhay injineer Deeq Haya Caydiid barnaamijka qayb weyn ka qaatay Xadiis Xasan Baaruud waxaana isku duway Libaan Weerax Cumar intaan barnaamijka ka xiga ku kulmi doono waa dhamaantay oo idinla dhibanayaasha jeclin waxay dalbanayaan cadaalad